wuxuu ku saabsanaa tababarkaas sidii ay degmooyinku isugu xidhnaan lahaayeen oo wada tashan lahaayeen isu sababtoo ah degmooyinku baahiyo kala duwan bay leeyihiin isu caawin lahaayeen gobolka Sanaag waa gobol ballaaran degmooyin badan ay hoos yimaadaan imise degmad kaga soo qayb gashaan gobolka dhammaan waxaan ka soo qayb galay 5 degmo gobolka ka tirsan degmada Garadag degmada Ceelaf Weyn degmada Ceerigaabo degmada Baran degmada Laasqoray iyo degmada Dharwa 6 degmo waa tahay maxaad soo kartaa muddadii labada maalmood ahayd ee tababarkaas uu idin socday dawladaha hoose waxa aqoonaad ka korsateen ayaa la oran karaa runtii wax badan baan ka kororsanay waxaan ka kororsanay oo ugu muhiimsan horta 23 degmo doorasho isbartay maayiradoodii oo si fiican u wada sheekaystay ururka Algasalo ay ururaha dawladaha hoose leeyihiin oo ka taageera inuu u doodo arrimahooda waxaan kale ku baranay ururka VNG oo isna laga leeyahay Norway ay ahayd meelaha Netherlands laga leeyahay isagana aan ku baranay oo seminaarka noo qabanayay marka wax badan baan runtii ka faa'iiday markii idinku horeysayba kulan noocan oo kala ama wasuuliyaar sidoo kale aad ka soo qayb gashay kulliba wadkii ugu horeysay adeer waxaad ka warantaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee muddada labada maalmood ahaa aad kulanka ku fakarteen waxa ka mid ahaa sidii la isaga kaashan lahaa baahiyaha degmooyinka ayaa ugu muhiimsanaa baahiyaha degmooyinkana way kala duwan yihiin oo midba hadda Hargeysa Garadag isku baahi ma way kala duwan yihiin marka mid walba baahideeda soo bandhigaysay marka waan soo bandhignay wixii aan Garadag markaan anigu u fadhiyay wixii baahi Garadag yaalay iyo sidee u baahnayd in looga caawiyo oo soo bandhignay ugu dambeyntii maayarka xigeen waxaad ka warantaa xaaladda guud ee degmada aad mas'uulka ka ahayd sidee ahayd xaaladda guud ee degmada Garadag waa nabadgelyo marka hore aad baa loogu fiican yahay waa nabadgelyo guud ahaan waa lagu fiican yahay waa nabadgelyo haddii maayar degmooyinku aad sheegtay maaha isku awoodna maaha isku duruufna maaha maxaad isleedahay baahiyaha waaweyn ee degmadaas ka dhimanaya aad ka gola deegaan ahaan isleedihiin wax ka qabta runtii wax badan baa degmada Garada ka dhiman waxa baahiyaha isleeyahay wax ka qabta waxa ka mid ah ugu horreyntii arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada biyaha laydhka deegaanka oo runtii anaga baahida ugu adag wax weeye deegaanka oo dhuxul baa nalaga shidaa oo wax weeye halkana waxaan u marinayaa uga faa'iideynaya wasaaradda deegaanka inay arinteeda Garadag toos wax uga qabato oo la socoto sababtoo meesha dhuxusha xoog looga shido ee aanay ka fadhiisan waxaan kaloo iyana nagu isleenahay wax ka qabta dhulalkan la xidhanayo oo dadka gaarka xidhanaya seerayaasha oo aan deegaanka iyaga ku badnayn haddana aad moodo inay nagu soo fidayaan gol ahaan waanu joojinay arrinkaa oo waanu joojinay go'aan baanu ka qaadanay marka meelahaasaan isleenahay wax ka qabta insha Allah aad baad u mahadsantahay